saddex nin oo saaxiibo ah. Midka koowaad waa shakhsi taajir ah, midka labaad iyo kan saddexaad waa laba shakhsi oo fuqara ah. Shakhsigii qaniga ahaa ayaa ku yidhi, ka warrama haddii saddexdeena ninba habeenna marti qaado. Way ka aqbaleen. Waxaa nasiib u yeeshay habeenkii koowaad ninkii taajirka ahaa. Waxa uu sheegay shaqaalaha gurigiisa in caawa ay marti u soo socoto una diyaariyaan cunto fiican. Sidii uu rabay ayay wax u dhaceen. Asxaabtiisa ayuuna guriga keenay, cuntadii ayayna cuneen. Habeenkii labaad waxaa nasiib u yeeshay shakhsigii labaad. Hooyadiis ayuu u yimid. Waxa uu sheegay in caawa asxaabtiisa ay u imaanayaan una kariso cunto aad u wanaagsan. Waxa ay ku tiri, halkii ka keenaa lacagta aan ka soo bixinayo cuntooyinka. Waa uu qeyliyey, isagoo ku yidhi hooyadiis, meesha rabto ka keen, ma doonaya asxaabteeda in ay maleeyaan qof faqiir ah. Way baxday, dariskeeda ay lacag ka soo deysatay si ay u kariso cuntada uu doonayo wiilkeeda. Way u diyaarisay, asxaabtiisii way imaadeen, cuntadii ayayna la cuneen, wayna ka soo tageen. Habeenkii saddexaad waxaa nasiib u yeeshay ninkii saddexaad, ahna sidoo kale qof faqiir ah. Hooyadiis ayuu u sheegay arrinkii. Way ku xanaaqday, waxa ay ku tiri, haddii aadan ka bixi karin hamarti qaadin asxaabtaada, halkii ka keenaa lacagtaan ku karinayo cuntada. Waa uu cudur daartay hooyadiis isagoo hoos fiirinaya. Waxa uu ku yidhi, iga raali noqo hooyo, waanu ku fakar geliyey, ma awoodin asxaabteeda inaan ka diido. Haddana wax aan sameeyo ma aqaan. Cuntada aan maalin walba cunno kale inoo keen, way ila cunayaan asxaabteeda, mana iskala weynaanayo. Hooyadii way u diyaarisay, waxa ay miiska u saartay saxan timir ay ku jirto ukun, caano iyo biyo. Salaadii maqrib ayay soo tukadeen, qolka ayay soo galeen. Waa ay la yaabeen waxa uu diyaariyey. Shakhsigii labaad oo ah qof faqiir ah ayaa ku yidhi kadib markii uu fiiriyey cuntada, sidaan miyaa ixtiraamkaaga? Haddii aan ogaan lahayn kumaan imaaneen. Waqtigaas ninkii qaniga ahaa cuntada ayuu u soo dhawaaday, una mahad celiyey shakhsiga marti qaaday. Isagoo cunaya ayuu yidhi, caawa martiqaad wanaagsan ayaa inoo samaysay. Shakhsigii labaad waa la yaabay hadalka ninka qaniga. Waxa uu ku yidhi, waan baxayaa, maqaayaddii igu dhow ayaan cunto ka doonanaa. Waana baxay. Labadoodii ayaa soo haray, cuntadii ayayna dhammaysteen. Shakhsigii martiqaadka sameeyey waxa uu weydiiyey ninkii qaniga ahaa, maxaad iiga tegi weysay sida saaxiibkan iiga tegay oo kale? Waxa uu yidhi ninkii qaniga ahaa, walaal, lacagta ma tilmaanto shakhsiyadda qofka, waa wax waqti ku xiran. Waxaana suurtagal ah inay timaaddo maalin aad iga lacag badan tahay. Anigoo og xaaladdiina dhaqaalaha ayaa idin dhahay, ka warrama haddii saddexdeenna ninba habeenna marti qaado. Waxaana doonayay inaan ogaado wejiyadiinna xaqiiqda ah. Waana kaaga mahad celinayaa martiqaadkaad inoo samaysay. Saaxiibkeenna waxaan ogaaday wejigiisa xaqiiqda ah iyo inuusan gelin saaxiibtinimo. Sidaa arkaysaba, hooyada horteeda ayuu isku dayay inuu kugu ceebeeyo, iyadoo isku mid tahay xaaladdiisa dhaqaalaha iyo xaaladdaada. Laakiin waxa uu gashtay dharka isla weynida si uu ii tuso inuu yahay qof qani ah. Laakiin adiga waxaad tahay qof wanaagsan oo nolol aan isla weyni lahayn ku nool. Mana kaa muuqato inaad tahay qof aniga iga liita. Saaxiibkayga daawanayow, ha iskala weynaanin noloshaada wax walbay ahaato, oo noqo qof leh hal weji oo wanaagsan. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe channelka maanta si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub.